Assalaamu calaykum. Waa muuqaal cusub oo aynu ku qaadaa dhigi doono sidee ayaad u dooran kartaa fakaltiga jaamacadeed ee kugu habboon. Iyada oo aynu ku jirno xilliyadii ugu horreysay ee guga waxbarasho sanad dugsiyeedka ayaa waxaa jira arday badan oo la daalaa-dhacaya habkii ay u dooran lahaayeen waxa ay ku baranayaan jaamacadda iyo qaybta ay ka dooranayaan oo matali doonta iyaga naftooda. Waxaaba dhacda in ay isqoraan jaamacadda marka ay ku wareeraan kala doorashada qaybaha waxbarasho ee jaamacadda. Haddaba waxa aan muuqaalkan kugula wadaagayaa 4 qodob oo kugu kaalmayn doona doorashada fakaltiga aad mudan tahay in aad doorato, kaas oo qayb weyn ka noqon doona qaabaynta mustaqbalkaaga. 1. Ogow ujeedkaaga iyo hadafkaaga. Marka hore, waxaad isweydiisaa waa maxay ujeedka aan anigu rabo in aan mustaqbalka gaadho. Marka aad weydiintaa ka warceliso, waxa aad ogaataa in jaamacaddu ay tahay waddo aad hadafkaaga u sii marto. 2. La sheekayso ardayda kaa da'da weyn iyo barayaasha jaamacadeed, waayo waxa aad ka qaadanaysaa waxyaabo badan oo kaa caawinaya in aad doorato qaybta kugu habboon. Waayo ardayda kaa da'da weyni waxa ay leeyihiin waayo aragnimo waxbarasho oo ay iyagu la soo noolaadeen. Barayaasha jaamacadeedna waxa ay ku hayaan xeerarka uu ardaygu ku doorto fakaltigiisa. 3. Xasuuso maadadii aad ku fiicnayd dugsigii sare. Waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan ee ardayga ka caawinaya fakaltigiisa in uu dib u milicsado maadadii uu ku fiicnaa fahankeeda iyo buundooyinkeeda imtixaan. Tusaale, qofkii ku fiicnaa fiisigiska iyo xisaabta waxa u fudud in uu barto accountiga. Sidoo kale, ardaygii ku fiicnaa biologiga waxa u fudud in uu dhigto caafimaadka qaybihiisa kala duwan. Sidoo kale, dhanka shareecada, ardaygii ku fiicnaa xadiiska rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo fiqiga waxa u fudud in uu dhigto kulliyadda shareecada. Ardaygii uu u fududaa naxwaha iyo sarfiguna waxa u fudud in uu dhigto kulliyadda afafka ama afka carabiga. 4. Gal imtixaanka qofeed ee kuu sheegaya takhasuska ama fakaltiga kugu habboon ee aad gelaysid, kaas oo aan ningaxiisa idinku reebi doono faallada ugu horreysa. Inta aynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso badan, waa Sakariya Haaruni oo idinkaga tegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.